السلام عليكم أصحابتي قالي سو دوادا حرجين أنا في عندنا حالدينا dhagaytahay kusoo dhawaada fiidiyogeena maanta bisha barakeysan ee Ramadaan faa'iidooyin fara badan ay leedahay khaasatan inaga muslimaan aad ay muhiim u tahay fiidiyogeena maanta waxaan uga hadli doonaa faa'iidooyinka kala duwan ee bishani ay u leedahay qofka muslimka faa'iidooyinkaasna waxaa kamid ah faa'iidooyinka soonka ee nafta soonku waa fursad muhiim ah oo Ilaahay ku maneysay dadka muslimiinta ah si ay u xoojiyaan iimaankooda u saxaan qaladaadkooda isagana joojiyaan caadooyinka xun ee ay qabatimeen bishani qofka muslimka waxay bartaa sabarka inuu ku samro gaajada iyo oonka maalintii xilliga uu sooman yahay adkaysiga inuu u adkaysto wax walba uu la kulmayo maalintii inta uu sooman yahay iyo kantaroolida rabitaankaaga nafsiyadeed inaadan naftaada u galan waxyaabaha ay doonayso sida in iska raaxaysato heshana wax walba ay rabto haddaba waxaan wax ka taaban doonaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka soonku uu leeyahay dadka xagga caafimaadka xagga nafta xagga ruuxda iyo xagga dhaqanka qodobka koowaad faa'iidada soon ee ruuxda soonku xigmadda uu Ilaahay u waajibiyay ma ahan in laga reebtaano cunista iyo cabista oo kaliya ee soonku waxa uu leeyahay xikmado badan oo uu Ilaahay ugu talagalay qofka muslimka ah inuu ku dhismo xaq kasta ee noloshiisa kamid ah dhan walba oo noloshiisa kamid ah haddaba faa'iidooyinka soon ee ruuxda waxaa kamid ah soonku wuxuu u dhoweeyaa qofka Ilaahay wuxuuna xoojiyaa iimaanka qofka waxaa la xiraa shayaadiinta waxaana la furaa albaabada jannada dadka soomana Ilaahay wuxuu u diyaariyay albaab gaar ah oo ay ka galayaan jannada soonka waxaa ku jira habeenka laylatul qadr oo ah habeen cibaadadiisu ay ka khayr badan tahay 1000 bilood laylatul qadri khayrun min 1000 shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر خير من 1000 شهر بش رمضان إلهي وحو كردية أبال مرينت عبادوينك أجر كودن أو كردية وانا فرصة وقفك أوقفها إذا يسنكر إنو لبن لابو عبادوينك يسكال الدوان أوقود دوادو إلهي سبحانه وتعالى إخلاص إيو عبادو أو لو قاريو إلهي سبحانه وتعالى إيادو أن استوتس إيو وحلقاشيغو أيسن كجرين وفائدوينك أوقفك كتاب برتو شهر رمضان inaadan u cibaadaysanin in lagu dhaho uu cibaadaysanayo kaliya aad u cibaadaysato Ilaahay ku abuurtay subhanahu wa ta'ala inaadan u cibaadaysanin dadka ha ku amaanaan ee aad u cibaadaysato Ilaahay ku abuurtay waxay kamid tahay faa'iidooyinka uu qofka soonka u baro soonku qofka waxa uu siiyaa jaceylka Ilaahay iyo daacadiisa iyo alla ka cabsiga waxa uu nacbaysiyaa macsida iyo wax walba oo xun oo ka fogeynayo daacada iyo cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala soonku qofka waxa uu ku carbiyaa sabarka loo sabro cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala taasina waxay kordhisaa iimaanka qofka iyo jaceylka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobka labaad faa'iidooyinka caafimaad ee soonka faa'iidooyinka caafimaad ee soonku ma ahan wax yar oo la soo koobi karo aad ay u balaaran yihiin inta lagu ogaaday ilaa haddana wayba iska kooban tahay maalin kasta waxaa la soo daafuraa faa'iido ee soonku u leeyahay jirka iyo caafimaadka qofka iyo baahida loo qabo in la soomo si looga hortago cudurrada loona cusboonaysiiyo caafimaadka jirka qofka bani'aadamka faa'iidooyinka caafimaad ee soonka qodobka koowaad soonku waxa uu ka takhalusaa qashinka jirka waste products qodobka labaad soonku waxa uu damaanad qaadaya tamarta jirka isagoo suurtagelinaya qaybinta tamarta hadba baahida uu qabo jirku qodobka saddexaad soonku waxa uu wanaajiyaa habdhiska dheefshiidka wuxuuna fududeeyaa oo wanaajiyaa habdhiska dheefshiidka ee jirka bani'aadamka wuxuuna fududeeyaa nuugidda ama absorptionka dheecaanada faa'iidada u leh jirka qofka qodobka afaraad soonku waxa uu yareeyaa sokorta jirka ama macaanka hadba saa u taqaano soonku wuxuu furaa maskaxda wuxuuna xoojiyaa garashada qofka qodobka lixaad soonku wuxuu faa'iido u leeyahay daweynta xanuunada kala duwan ee jirka sida dhiigkarka soonku wuxuu hoos u dhis ku sameeyaa cadaadiska dhiigga hab la dareemi karo qodobka toddobaad soonku wuxuu faa'iido u leeyahay maqaarka wuxuuna qurxiyaa isagoo ka hortaga finanka iyo boogaha ka soo baxaya jirka wuxuuna qof u siyaadiyaa qurux iyo muuqaal wanaag sidaa awgeed soonku ku dadaala darabta inaad qurux badnaatid ani sidaa ma dhihin baaritaan ayaa lagu cadeeyay waa hagaag maraba video inaan ku sii dheeraado faa'iidooyinka soonkuna ma ahan wax hal video lagu soo koobi karo aad ay u fara badan yihiin oo ay u balaaran yihiin muhiimadeeda waxay ahayd inaan wax aan ka bidhaamiyo aan idin la wadaago qaar ka mid ah faa'iidooyinkiisa sidaa awgeed intaas ayaan isaga soo koobayaa video inaan ku sii dheeraado maraba qofkii wax dheeri inoo hayana qaybta commentiga nagu la wadaago waa iga intaas videogeena maanta aad ugu mahadsantahay daawashada like sar videoga subscribe sar channelka siina share garay haddii aad karto waxay nagu caawinaysaa inaan si fudud u korno aad iyo aad u mahadsantahay maantana waa inaga intaas waxaan idinkaga tagay si aad nabadgeliyo waxaa inoo balana videoga xiga maca salaam